siiyeen oo faahfaahsan oo ku saabsan labadii sano ugu dambeysay ee soo dhaafay waxqabadkii iyo guushii ciidamada booliiska Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo aan u diro hambaliyo meel kasta ay joogaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, khaasatan sarreeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenada, dableyda iyo qoysaskooda iyo carruurtoodaba meel kasta ay joogaan. munaasabadan maanta aan u dabaaldegayno oo 78 guuradii ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 waa idin dhegaysanay. qof walba oo halkan ka hadlay wuxuu sheegay wixii loo baahnaa, hadday noqoto waxqabad, hadday noqoto dhaliilo loo baahan yahay in wax laga qabto. anugu waxaan rabaa inaan taabto booliiska Soomaaliyeed inay ahaayeen hooyadii dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka iyo kala dambeynta. waa institutionkii, waa hay-addii ugu horreysay oo la aasaasay. waxbay ku sheegaysaa marka macnahay leedahay. macnahay leedahay waxa weeye waxaan loo aasaasin 78 sano ka hor ciidamada dhulka, ciidamada cirka iyo ciidamada badda iyo hay-adaha kale ee dowladda. waxaa loo aasaasay inay yihiin aasaaska dhabta ah ee dowladnimada Soomaaliya loo diyaarinayay xorriyaddeeda. waxa weeye ummad walbaba oo adduunka jirta markii ay heshiis gaaraan inay samaystaan maamul, hadduu ahaado meesha ugu hooseysa ee degmo iyo meesha ugu sarreysa oo la dhisaayo dowladnimo ama qarannimo la dhisaayo, waxaa muhiim ah oo laga hadlaa sidii loo sugi lahaa ammaanka ama waxa la yidhaahdo law and order. waxaa suga amniga, law and orderka sugana waxaa ugu horreeya booliiska. macnaheedu waxa weeye meeshaas waa meesha dowladnimadu ay ka bilaabato. dowladnimada iyo maamulka iyo waxa la yidhahdo authority-ga meeshaas ay ka bilaabataa. macnaheedu waxa weeye law and orderku ama sugidda amnigu waxa weeye waa meesha lagu ilaaliyo kala dambeynta, lagu ilaaliyo nidaamka iyo sharciga lagu ilaaliyo. kadib baa waxaa la dhisaa marka hay-adihii loo baahnaa. taas waxay muujinaysaa marka booliisku inay yihiin udubdhexaadka, hooyada dowladnimada aan haysanno iyo dowlad kastoo adduunka ka jirta. waxaa xigi kara marka wixii kabaayey amniga ama sugidda amniga, wixii kabaayey yaa ku xiga oo kow ay ka tahay maxkamadaha sharciga. waxaa ku xiga markii maxkamadihii iyo booliiskii la dhiso oo la diyaariyo, waxay u baahan yihiin resource, dhaqaale u baahan yihiin. dhaqaalahaasi dadkii heshiiyey, ummaddii heshiisay oo ku heshiisay inay maamul samaystaan, yaa waxaa khasab ah marka inay samaystaan maamul iyo canshuur aruurin. meeshaas waxaa ka bilaabanaya in lagu bixiyo mushaaharaadkii. marka waxa weeye mushaaharaadkaasi oo ah daruuri iyo wax alla wixii hawsha lagu qabanayo. dhismaha dowladda dhismanaysa marka maamulka dhismanaya waxa weeye markii adeega dowladda laga rabay la dhammaystiro. adeega waxaa ka mid ah ciidanka xoogga oo qaybihiisa kala duwan, hadduu yahay badda, cirka iyo dhulka. waxaa ka mid ah hay-adihii caafimaadka, waxaa ka mid ah hay-adihii biyaha bulshada siinaysay, waxaa ka mid ah korontada, waxaa ka mid ah jidadka la dhisaayo. ogaada waxay ka soo bilowdeen amniga, ka soo bilowdeen in amniga la dhiso marka hore oo la sugo amniga.
oo amnigaasna uu u yahay garab u yahay ama guidance u yahay ciidamada booliiska Soomaaliyeed haddii aysan jirin marka maxkamad ma dhismayso oo qofkii dambiilaha ahaa la geeyo oo ummadda dhiba ama labada qof qofka dhibanaha iyo qofka dhibka sameeya ama qofka dhibanaha ama qofka dhibka lagu sameeyo u xaqsoora oo cadaalad u sameeya la heli maayo meeshaas weeye meesha loo baahan yahay inaan fahmno booliisku inay yihiin saldhigii aasaaskii dowladnimo ama dowladnimadaan haysanno waxa weeye marka waxa weeye waa ciidan ka mid ah bulshada oo ka yimid bulshada u adeegaya bulshada u cadaalad falaya bulshada intaas kaliya maaha haddaad maqashaan dowlad wanaag waxa weeye aasaas waxa u ah booliis iyadana hadday dowladdu xun tahay macnaheedu booliiskaan shaqaynin hadday dowladdu wanaagsan tahayna ama aad maqashaan dowlad wanaagna waxa weeye booliiska habeen har iyo habeen taagan oo shaqadii dastuuriga ahayd ama waajibaadkoodii gudanaya waxaan ka soo qaadaynaa meesha ugu hooseysaan ka soo qaadna saldhigyada booliiska ama stations ay joogaan oo xaafadaha ku yaalla marka loo yimaado oo dhibbanno u yimaado waxaa laga rabaa iyagu inay soo qabtaan kii dhibka sameeyey oo si sax ah ay report u soo qoraan oo ay u soo qoraan CID fiiriya meesha ka bilaabatay cadaaladda meesha ka bilaabatay cadaaladda maaha maxkamadahu maaha meesha ka bilaawdaan iyo garsoorayaashu waxay ka bilaabataa cadaaladda taliyaha jooga saldhigyada booliiska markii qof dhiban oo cabanaya oo xaqdarro lagu sameeyey ee u yimaadaan ee intay ka qoraan wax alla wixii dhib ah lagu sameeyey oo kii dhibka sameeyey soo qabtaan ee u soo gudbiyaan CID oo CID-dan uu baaro in saldhigan waxa uu hayo macluumaadku hayo inay sax tahay oo kan CID-dan uu u shaqeynayo si hufan oo musuqmaasuq ka fog kadibna faylkii oo dhammaystiran uu u soo gudbiyo xeer ilaaliyahana keeskiisa uu ku dhisto kayskii ka soo bilowday taliyaha saldhigga ka soo bilowday markaas weeye marka maxkamaddu iyo garsoorayaashu ay ka gaari karaan go'aan saxa marka oo cadaalada laakiin haddii kaysku uu hoos ka soo bololo oo isagoo dhintay u yimaado macnaheedu waxa weeye cadaalad darra dhacday cadaalad darra hadday dhacdayna bulshada aan matalayno ama bulshada aad u shaqaysaanna waa kala fogaanaysaan maxaa yeelay bulshada iyo dowladda waxaa ka dhexeeya xiriirkooda waxa weeye xiriirka ku dhisan cadaalad markaad ka shaqaysaan aad hawshaas saas waajibaadkiina u gudataan waxaad ku soo dhaweyseen bulshadii dowladdoodii aad ku soo dhaweyseen waa taas meesha ka bilaabatay dowlad wanaagga marka waxaa soo haray booliisku waxay joogaan meel walbay joogaan qaybaha canshuurahay joogaan jidadkay taagan yihiin traafika weeye meel walbay joogaan meel alla meeshay joogaan hadday ay uga shaqeeyaan si hufan macnaheedu waxa weeye oo qofka musuqmaasuqa wada ay qabtaan oo ay u soo gudbiyaan hay-adaha shaqada ku leh shaqadaas macnaheedu waxa weeye dowladdaasi waa dowlad wanaagsan oo si wanaagsan u shaqaynaysa wey laakiin haddii booliiskii aysan saas u shaqaynin sidaas hufanaysan u shaqaynin waxaa leeyahay dowladdan waa dowlad xun meeshaas waxaa imaanaysa marka meesha shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdoodu ama ay ku isugu dhowaanayaan ama ay ku kala fogaanayaan haddaba waxaan rajaynayaa inaad bacdama aad tihiin aasaaskii amniga ilaalinta amniga iyo law and order-ka inaad shacabka u adeegtaan
oo si hufan oo wanaagsan oo raxmad leh oo naxariis leh oo walaaltinimo leh aad ugu adeegtaan maxaa yeelay iyagaa bixiya mushaarkaaga waa taxpayers canshuurta iyagaa bixiya mushaarka aad ku qaadato markaas waxay imaanaysaa dadweynahaasi inay jeclaadaan dowladdooda oo ay la shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan ay ilaaliyaan shuruucda ay canshuurta bixiyaan haddii canshuurta la bixiyana dee mushaharkaaga waxaa weeye dowlad hufan oo wanaagsan weeye way kordhinaysaa mushaharkaaga maxaa yeelay dadku waa qanacsan yihiin oo daryeelkoodii iyo adeegoodii waa la fuliyey waxaa intaas ugu sii muhiimsan dadweynahaas waxay noqonayaan muwaadiniin waddaniyiin ah oo maxaan ku raahdaa ku qanacsan dowladdooda oo la yidhaahdo good citizen markaas weeye meesha siyaasaddu la doonayo dadka shacabka ah inay uga xirmaan bacdama aan nahay dowlad iyo dal dimuqraadi ah aan nahay oo doorasho lagu yimid waa jeclaan lahaa shacabkaas Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed iyagu inay cod ka lahaadaan oo ay doortaan laakiin duruufo dhacay awgood dib ugu noqon mayno waxaan haysanaa waxa la yiraahdo doorasho dadban doorashadaas dadban oo laga hadlay waxaan aaminsanahay inta badan waa in la sheego wax wanaagsan waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha inay shaqo wanaagsan qabteen oo ay dadaaleen duruufo waa iska jiraan ama dhaqaale ama duruufo kale oo farsamo waa iska jiri karaan laakiin waxa weeye doorasho dadban marka la yiri iyadaaba muran ku dhisanba waa doorasho dadban marka in la isqanciyo oo la wada shaqeeyo iyay wax noogu hagaagi karaan waa ku faraxsanahay inay booliiska Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin hawshaas ilaalinteeda waxaan rabaa si wanaagsan inay u ilaaliyaan oo uga warqabaan oo ugu cadaal falaan waa soo dhaweynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay heshiiskii September 17 uu ka hadlay heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci meel buu yaalaa aniguna waa saxiixay waxaan rajaynayaa inaana waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yararka ahaa oo la isku qabtana si dee xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ku jirto in looga wada hadlo laakiin principle-ka uu ku dhisan yahay aasaas ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aad looga fakiray aad looga shaqeeyay in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo ugu dambeyntii waxaa noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay gudoomiyaha waxaan rajaynaynaa insha Allah in la dardargeliyo inta harsan oo madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay focus gareeyaan ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan maxaa yeelay hawsha noo taalla oo kaliya waa doorasho waxa laga sugaayo ummadda Soomaaliyeed laga sugayso waa doorasho waxa loo baahan yahay in doorashaas noqoto doorasho hufan doorasho cadaalad ku dhisan doorasho lagu qanacsan yahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna uu tartami karo insha Allah waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsi ah ay noogu dhamaato والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته